asalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii diblomaasi. daawadayaal isqabqabsigii indhawaalaba ka dhexeeyey dowladaha reer galbeedka iyo dowladda turkiga oo matalaysa dadyowga islaamka ee adduunka ayaa 360 digri dhanka kale isu rogay, waxayna haatan u muuqataa siyaasadda kubaddeedu inay gacanta turkiga ku jirto kadib goor hore oo maalinimadii maanta ahayd markii madaxweynaha dalka turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu ku dhawaaqay dowladdiisu diyaar inay u tahay inay si gaara Finland ugu ogolaato inay ku biirto gaashaanbuurta NATO. waxa uu kala reebay labadii dowladood ee iyagu doonayay inay si wada jira ugu biiraan gaashaanbuurta. waxa uu sheegay Sweden inay cagaha la gashay dhiiqa aanay ka bixi karin, balse dowladda Finland ay jaanis wanaagsan haysato oo ay kaga mid noqoto gaashaanbuurta NATO. siyaasadaha noocan ayaa daawadayaal waxaa la yidhaahdaa ka jilaabasho. cadowgaaga dhexdiisa aad ka jilaabanayso. markii aad cadow la dagaalamayso waa inaad u heshaa cid adiga asxaabtaada oo dagaalkaa kula gasha kuuna hiilisa. haddii aad weydana waxaa lagama maarmaan ah inaad iyaga dhexdooda cadaawad ka dhex abuurto kalena furfurto. haatanna tan uu door biday madaxweyne Erdogan waa taa. dowladda Finland waa tan la wadaagta dalka Ruushka soodin dhererkeedu ka badan yahay 1400 kilomitir, waana tan cabsida ugu weyn ka qabta dalka. sida rasmigaana waa dowladda khasaaraha ugu badani soo gaaraya haddii dowladda Ruushka u roqaansato inay dowladaha tallaabo militari ka qaado. haatanna madaxweyne Erdogan iyo dowladdiisu waxay dowladda u shideen nal cagaar oo ay ku soo dhoweynayaan. waxa uu warbaahinta u sheegay dowladda Finland iyadu inaanay wax aflagaadaa u geysan ilaa ay hadda diinta iyo kitaabka qur-aanka ee dadka muslimiinta ah. waxa uu sheegay inay tahay dowlad qunyar socod ah, haddiiba ay doonaysana inay ku biirto gaashaanbuurta looga baahan yahay inay buuxiso shuruudaha dalka Turkiga oo keliya. waxa uu sheegay dowladdaas inay dhan walba u fudud yihiin shuruudaha inay buuxiso, maadaama arrimaha intooda badan laga rabay dowladda Sweden oo dabcan dad ahaan iyo dal ahaanba ka weyn dalka Finland. balse dowladda Finland ayaa iyadu waxay tahay daawadayaal midaan iyadu lahayn wax siyaasad arrimo dibadeed, waana dowlad mar walba samaysa ficilada ay samayso dowladda Sweden oo had iyo gooraale ay gabaad ka dhigato. dabcanna dadyowgooda ayaan ahayn kuwo kala fog. arrintan ayaa la sheegay durbadiiba inay ku abuurtay welwel madaxda reer Sweden ee fadhida Stockholmta kitaabka muqaddaska lagu gubay, oo iyagu haatan dareemay Erdogan inuu isticmaalo siyaasadaad u wanaagsan. dowladda Finland ayaan iyadu ilaa ay haatan arrinta ka hadlin, balse cid waliba waxay qiyaasaysaa dowladda Finland inay jaaniskan qabsanayso, maadaama xilligan ay sheegtay inay u baahan tahay damaanaqaad amni oo rasmi ah. dowladaha reer galbeedka ayaa iyaguna arrintan la yaabay, balse gebi ahaantood waxay istuseen Erdogan inuu qodob muhiima qabsaday. haatanna dowladihii reer galbeedka ayaa awal u midoobay inay colaad iyo nacayb u qaadaan dowladda iyo tan keliya gaashaanbuurta ka tirsan ee muslima waa dalka Turkiga ayaa dhexdoodu laba u kala jabi doona. qaybtooda ayaa taageeri doona dowladda Finland inay ku soo biirto gaashaanbuurta NATO, halka qayb kalena ay isku xiri doonaan labada dowladood. ugu dambayntana taas waxay keenaysaa dowladaha reer galbeedka inay garowsadaan dhibaatada dowladda Turkigu indhawaalaba ay ka cabanaysay, amaba gaashaanbuurta NATO ay iska noqoto mid soo afjaranta. inkastoo ilaahay inoo sheegay dhulka mar walba inuu khaliif u samaynayo cid gacan sarraynteeda yeelataana ay jirayso, haddana gaashaanbuurta NATO arrintaasuna ay tahay mid lagama maarmaan ah. haddana gaashaanbuurta NATO waxay adduunka ka soo talinaysay wixii ka dambeeyey xilligii uu dhammaaday dagaalkii qaboobaa ee adduunka ilaa laga soo bilaabo sannadkii 1991 waxay ahayd gaashaanbuurta ugu adag ee adduunkan aynu ku noolnahay ka jirtay. balse wixii ka dambeeyey sannadkii 2001 xilligii la burburiyey labadii daarood ee dhaadheeraa ee dalka Maraykanka, gaar ahaan magaalada New York, ayaa isbeddel weyni ku yimid siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka oo isagoo ah ka gaashaanbuurta hogaamiya. yowga 2 bilyan oo qof ka badan ee muslimiinta ee adduunka ku noolna waxay istuseen wixii xilligaa ka dambeeyey siyaasadda arrimaha dibadda dalka Maraykanku inay noqotay mid muslimiinta lagu colaadinayo oo keliya. dowladda Maraykanku waxay u soo bandhigaysay gaashaanbuurta NATO qorshe kale uu ka dambeeyo. qorshayaashaasoo dhammina waxay ahaayeen kuwo loogu darnaanayo dalalka islaamka ah.
tusaale wixii ka dambeeyey labada daarood markii la qarxiyey dalalkii la weeraray oo dhammi waxay ahaayeen dalalay iska leeyihiin dadyooga muslimiinta ahi aynuna ka xusi karno ciraaq, afghanistan, liibiya, suuriya iyo kuwo kaloo aad u fara badan oo gaashaanbuurta nato ee cirka ka duqayso iyagoo sheeganaya inay argagixiso kula dagaalamayso. gebi ahaanba ma jirin gaashaanbuurta nato inay weeraro noocana ka fulisay hal dal oo aan muslin ahayn. wixii xilligaa ka dambeeyey muslimiinta adduunka iyo dadyow kaloo reer galbeedkaasa balse aan ku qanacsanayn qaabka ay wax u socdaan iyo gaashaanbuurta nato waxay mar walba istusayeen in la soo gaaray xilligii la samayn lahaa gaashaanbuur kale oo kula tartantaa gaashaanbuurta nato ka talidda adduunka. marar badanna waxaa inoo soo baxayay signal arrintaa inooga markhaanti kacaya. hore waxaynu u aragnay in la sameeyey urur la yidhaahdo briks oo ay ku midaysan yihiin dowladaha shiinaha, ruushka, hindiya, baraaziil iyo koonfur afrika. inkastoo ururkaas ugu dambaynuu noqday mid dhaqaalaha diiradda saara balse aan milatari ahaan aad u dhisnayn, walow way jiraan haddadan qudhadeeda in ciidamo ruusha iyo kuwo koonfur afrikaan ah ay dhowlatus wada jira wada samaynayaan. wixii ka dambeeyey dagaalka yukrain markuu bilowdana mar labaad waxaynu istusnay in la soo gaaray xilligii dowladaha ruushka, turkiga, shiinaha iyo hindiya iyo weliba dalalka muslimiinta ee ku yaalla bartamaha qaaradda aasiya ay samaysan lahaayeen gaashaanbuur ciidan, taasoo noqota mid kula tartanta nato ka talinta adduunka. daawadayaal, siyaasaddan uu isticmaalay maalinimada maanta rajab tayyib erdogan ayaa waxay tahay mid wax weyn ka beddelaysa siyaasaddii indhawaalaba cakirnayd ee gaashaanbuurta nato dhexdeeda ka aloosnayd. daawad, adiga ma kula tahay dowladda fiinland inay fursaddan ka faa'iidaysanayso fulinaysana shuruudaha dowladda turkiga si ay ugu biirto gaashaanbuurta nato, mise waxay kula tahay inay isku xiri doonto inay mar ku wada biiraan dowladda sweden? maxayse kuula muuqataa reer galbeedku inay siyaasaddan cusub ee rajab tayyib erdogan kaga jawaabi karaan? fadlan aragtiyahaga nagula wadaa qaab komentiya. mahadsanid. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واستر عيوبنا بسر سورة الفاتحة.